haddana waxaa ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha xusbiga model Khadar Cabdi Ibrahim saxab taariikh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي كادوز وسلامتين سلام وعن سلام وناكسن أدبود ما تنتهين مركورة رنتي وحان ربا إنان دمان تدوان رمنا إنان تعسي أمو جنو يتواضع قلبي أمو جنو حول دقتها ولكن محمد أبكاري إنه سو ورهمايي فلكي نحدينت لها كدعي بشي جانفيي صدن كيجي وقوي قدلك كسو غاري كنا جيريودين سيديد قف صدح عرور هايين قبضنا أي أور أي لهاي صدح قفنا أي كدا وعمين وحانو لو داغنا dadka xoola dhaqatada ah murugada ayaanu la wadaaganaa waxaanu u ducaynaynaa dadka ku geeriyooday inay ehlu janno noqdaanoo sababtoo ah waxay ku dhinteen gacan galdaro ah ayay ku dhinteen saddexda dhaawacana waxaan leenahay ilaahay si degdega ha inii bogsiiyo aamiin aamiin runtii waa fal naxdin leh waa mid ka hor imanaya xuquuqda aadanaha waa mid ummadda oo dhan ka yaabisay sidaa uu inoo sheegay maxamed abakaali bulsho xoola dhaqata ah in lagu weeraro daroon waa mucjiso wax la arkay haba yaraatee maaha markaa waxaan leenahay annagu hoggaankii BSN haddaanu nahay si cad waxaan u cambaaraynaynaa falkaa baan u cambaaraynaynaa waxaanan codsananaa in si degdeg ah loo saaro guddi madax bannaan oo war cad ka soo bixiya arrintaa kumanana qanacsanin communiquega uu soo saaray maxay ahayd dowladdu ay soo saartay waxaanu ku qanacsannahay inaan guddi madax bannaan la saaro oo si degdega ah loo saaro lagana soo warramo wixii meesha ka dhacay si cadna looga soo warramo waxaan kale leenahay waxaan rabnaa tallaabooyin adag in laga qabto falalkaasi si ay u soo noqnoqon sababtoo ah way soo noqnoqdeenoo waxay u soo noqnoqotay waa markii labaad amba markii saddexaad oo markii ka horeysay bishii December 30keygii 2024kii ayuu falkaasoo kala dhacay nasiib dadna kumay quud waayin dadna kumayna dhiman bay ahayd sida hadda waxaan leenahay falalkaasoo kale ma aqbali karno walaalahay waxaad ogsoon tihiin waqtiga adag wuxuu soo saaraa dad adag dadka taariikhdu maanta ay xusaso ee magacooga aynu naqaano waxay ahaayeen dad markii waqti adag ku soo beegmay damcay inay la wajahaan ay la falgalaan waqtiga adag dee magacdooda maanta meel walba waa laga xusaa bal taliya uun Gandhi Mandela maxay ahayd Sultan Mohammed Al-Fatih Ho Chi Minh Mahathir taliya uun dadkaas oo dhan waxay taariikhdu way xustaayo waxay u xustaa waqti adag ay ku soo beegmeen ayay damceen waqtiga ay la falgalaan ayna maxay ahayd jiheeyaan waqtiga bay maxay ahayd ayay qaateen baahayd innaka maanta waxaynu ku sugannahay runtii waqti adag baynu ku sugannahay oo maxay ahayd adeegba inoo wax adagba ay degeysano wax fudaydba inooma yaalo tan iyo 1999kii wax fudaydaba maynu arkino waxaynu arkin dejingadihii weli waynu hoos galnaa shoomeelimadeeni way sii kordhasaa saboolnimadii way sii kordhasaa soo maaha dee fudayd maynu arkin runtii
waxaan leeyahay walaalahaygiiow dadka xilliga adag waxaa loo baahan yahay dadkii inaga saari lahaa sababtoo ah maanta inaku waynu jiifsannay waxaa la yidhi lax waliba shililka isdigtaa lagu qalaaye saboolnimo ayay nagu hoos qaleen caydhnimay nagu hoos qaleen iyo shoomeelnimay nagu hoos qaleen dadka xilliga adag inaga saarayay in cid kale maaha waa innaka dhammaanteen waa adiga gabadh yahay tii diidi lahayd caydhnimo ee rabi lahayd horumar waa adiga wiilow kii diidi lahaa maamul xumada ee rabi lahaa maamul wanaagsan waa adiga habar yahay tii diidi lahayd runtii maxay ahayd is-aaminaan la-aanta ee raadin lahayd in la is-aamino oo la isku kalsoonaado waa adiga odayahow kii diidi lahaa in maxay ahayd shoomeernimo caruurtiina inagu hoos maxay ahayd baaba'aan shoomeernimo hoostooda ay ku baaba'aan ay heli lahaayeen shaqo wey wallahi marka waktigaa adag dadkii inaga saari lahaa waa inaka dhammaanteen ee waa inaynu u tafaxaydanaa tafaxaydituna waxay u baahan tahay hal shay inaynu fahanno lahaanshiyaha iyo fikirka maxay ahayday le sens de priorité maxaynu soo kala horaysiinanaa maxayna mudnaanta aynu siinanaa waa hal shay inaynu fahanno halka shaygaa haddaynu fahanno waxa weeyi laba maaweelada waa inaynu ka tagno mudnaanta waxaynu siinano si aynu u garanno laba maaweelo waa inaynu ka tagno maaweelaha ugu horeeya inaynu ka tagno waxa weeyi ummad baan ka soo shaqaynayaayo hoos baan ka soo dhigasayaa waa been aan isku maaweelinayno ummad lama maamuli kara ummad waa la hogaamiyaa baa la yidhi ee xoolaha ayaa la maamulaa marka waxay u baahannahay hoggaan baynu u baahannahay hoggaan baynu u baahannaho tusaale ahaan haddii aynu soo qaadano mahaatil sheegaye mahaatil 20 sannadood buu dhakhtar ahaa wuxuu ka shaqaynayay dhakhtar buu ka shaqaynayay waxba wuu ka qaban waayey Malaysia soo ma garanaysiin maxay ku suntanaan jirtay fiqiirnimo saboolnimo tayo caafimaad oo liidata shoomeernimo laakiin wuxuu ku qancay siduu laga soo warhamiyey inuu majaraha dalka uu gaadho hoggaanka sare markuu qabto tan uu hoosta uu ka qaban kari leeyahay dusha uu ka qabto ayuu maxay ahayd ku qancay markuu gaaray mahaatil uu ra'iisul wasaare noqday maxaa gaaray waxa dhacay dalkii inuu iswada bedelaba oo maanta Malaysia marka laga hadlayo caafimaad tayo laga sheegaa horumar dhaqaale oonan caadi ahayn baa laga sheegaa caruurteena aynu u dirnaa jaamacadahooda caafimaadka dadkeena aynu daweysan karo laanahay ee qashinka qiiqa ka baxaya koosarka u wada dhimanaya aynu ku daweysan karo laanahay dalkeena ayaynu u dirnaa Malaysia lagu soo daweeyaa maxaa keenay mahaatir wuxuu ku qancay hoos inaa wax laga soo maxay ahayd dhisaa inayna wax tawdayni ee majaraha dalka halka sare in wax laga dhiso oo la qabto ayaa muhiima oo halka sare inay wax ka yimaadaan waxa ku xaqiijinaya qiyam maxay ahayd risaalada rasuulku sallallahu alayhi wasallam korba igu iman jirtay marka waxa la yiraahdaa l'ordre il ne vient pas du bas mais il vient du haut ka yimaada samara ayuu ka yimaada marka waxaan u baahannahay si aan wax u hagaajino majaraha dalka waa inaynu karno maaweelada labaad aynu iska ilaalinayno waxa weeyi waxaan dhexgeli nidaamkan gudaha ka soo bedeli waxaasi wax soconaya maaha waxa la yidhi col kaa badan iyo biyo kaa badanba way ku hafiyaan baa la yidhi marka runtii dadkii tagay dee tusaale ahaan way nool yihiin oo waynu haynaayo dee way u kala kaceen kuwa ku dhex milmo soo noqon waayey soo ma jiraan kuwa soo noqdo weli meeraysanayo oo weli dee reegaan inaa muuqee u tuulayo nidaamka si ay ugu noqdaan weli indha jacayl u samayn tusaaya si ay ugu noqdaan soo ma hayno nidaam baan gudaha ka bedelayaa walaalahayga ma jirto waa maaweelada labaad marka waa inaan ogsoonaanaa inuu yahay awliyaadka aynu siinano prioriteega aynu siinano waa inaynu dusha wax ka bedelnaa si aynu dalkeena aynu u bedilno waayo hoggaankan aynu haysanaa waa hoggaan bilaa qiyama oo qiyamka waxa la yidhi qiyamku waa jihaha waa wuxuu jiheeyaa
jidka loo marayo mustaqbalka oo maanta inaku doonidaynu saarannahay waa dooni bilaa jiheeyaa soo maa waa dooni runtii bilaa jiheeyaa waa hoggaan bilaa qorshe ah oo qorshaha keliyaata ay wataan waa qorshe sheebkooga buuxinaya oo qorshihii ummadeed waxay ku wanqaleen qorshe jeebeed bay u wanqaleen waa hoggaan runtii quwad lahayno oo waxaa layidhi quwadda markaa laga hadlayo dadkeenu waxay ka soo hoos qaataan waan xoog weynahe maaha waan xoog weynahay quwadda laba shay baa lagu eegaa il quwadeed iyo indha quwadeed baa jira il quwadeedku il quraatuu leeyaho champ de visiongiisu waa 90 degree walaha intaa buu arkaa waa 90 degree indha quwadeedkuna muxuu arkaa 180 degree ummadda dhan buu saawaya marka waxaan leenahay yakuna waa hoggaan quwad lahayn walaalahay waxaan leenahay oo ku soo xidhi annaku waxaan wadnay waa qorshahana waxaynu ku gaari karanaa si aynu dalkeena ugu bedilno nidaamkan inaynu saa iskaga tuurno diyaar maa loo yahay in la iska tuuro badaba diyaar ma tihiin waa mahadsantiin walaalahay bes waxaan ku soo xidhi qorshaha aanayni wadno tusaale ahaan inaynu wax qabsan karanno 2000 dagaalkii adduunka 1945 Hiroshima sidii loo baabiyey soo lama garanayo maanta Japan halkay ku dambeysay waxay ku dambeysay waa la og yahay samaawaadka soo maaha de waxay qorshe la yiraahdo la thérapie du choc ayay maxay ahayd halka ku gaadheen annakuna waxaan wadnaa qorshe la yiraahdo baaqdadnimo ee ninkaan baahanay diyaar ma tihiin assalaamu calaykum